markaasuu inta madaxa gacmaha saartaba wuxuu yidhi subxaana allah ma waxay ku noolaadaan bay waayeen dhulkan ilaa wuxuu yidhi xamar ilaa ceel dheer inta u dhaxayda inta iska yimaadeen beera maa ka fashaan buu sheekhu yidhi ilaa hadda ma halmaamo waxyaabaha ka taagan waxaa ka mid a qof walba oo raba inuu shaqo helo way isdulleeyaa waa inuu horta ilaahay ka go-o marka ma inaan isdulleynaa u soconayna qurbaa u aadaynaa horta maya isdulleyn mayno waxa weeyaan wuxuu yidhi ilmahaagii weli meeshii miyay jiraan buu hal su-aal buu weydiiyey waas inta ila hadlay mase waa ka soo guurtay su-aal kale ku weydiin maaye sheekh bal hadda waa ka soo wadaa eri igu soo ducay doctor hadda bal meelahay joogaan baa iri hadda waa idinla joogaan xafladda insha allah qaarkiin culamada waa baran doonaan insha allah nicmada aada haysatiin iyo maanta darajada aada joogtiin waa darajo aada u qaali ah adinkoo darajadaas qiimiga badan jooga qalbigiina in hamigiina ay gasho subaxa dambe inaad tahriibtiin oo adduunyo raadisiin ee weliba aada rafaad iyo dhibaato in la gaarayo aan la ogeyn aada usii martiin qalbigiina iyo soo gelin waxaad taas uga sabartiin ama aada uga ilaalisiin qalbigiina qof walba waxa ilaahay u qoray horta ma gefayo hadduu bad sii maro iyo hadduu biri kala maro iyo haddii uu isdulleeyaba ilaahay wuxuusa kuu qorin orod lagu keeni maayo dadkii tahriibay ama adduunyada raadi maagay qaybaan maanta noolayn qaybna dulli bay ku nool yihiin qaybna waxay raadiyeen maba hayaanba laakiin dadkii ka haray oo niyadooda wanaagsan iyo waxbarashadooda iyo tacliimtooda iyo daraasaadkooda caaliga kor usii qaaday ee meeshii culummadu kula dardaarmeen iyo waalidkoodu hormariyey waxay joogaan meel maanta laysku hadlayn karo oo ayagiina anfacday bulshadiina anfacday marka waxaa laydinka rabaa in aad ku cibro qaadatiin intii idinka horeysa oo adduunyada dhibaatada iyo qaxarka iyo dhimashada iyo kala kulmeen inaadnan ku qaldaminin qof raba inta meelo adduunyada isagoo dhibaataysan kuwa iyagoo maraykanka gelin waxaa la ii sheegay markay buuraha kasii boodaan intaasoo maalmood say u socdaan bay inta meel qurxoon tagaan bay sawir usoo dirayaan dhalinyarada kaleeto markaasuu leeyahay lacagtii meeshay ka burqanaysa baan hadda joognahay soo bax kii kale runba u qaadanaya wax burqanaya lama arko wax burqanaya lama arko aniga meelaha igu safar xaggayda oo aan ka qayb galay waxaa ka mid a waddanka maraykanka sweden aan macnaha muddo joogay laakiin maraykanka waa 2016 baan tegey dadka jooga markay kuu sheekeeyaan ninka ugu shaqada fiican qaybo ka midu ilmihiisa kama warqabo taraag buu maanta oo dhan baabuur buu wadaa qaybaha ugu wanaagsan ma ka sheekeynaya maaha bulshada dhimata ma aha qaybaha culummada oo diintooda ilaashanaya qaar baa naf waxay ka doonaan ayagoo baabuurkaa saaran in ay teleefoonka ilmahooda qur-aanka ugu meeriyaan meelo wax ku barta ma haysto dadoo waxbara ma hayo waa sheekh caalim ah meel ma fadhiisan karo waxaa laga sugaya nolol iyo hawl baa sugaysa qofkaas wuxuu un ku nool yahay xayaato habeen iyo maalinba dheel madax marka ha u qabinina in adduunya idinka xaggayso adduunyada haddii aad ilaahay dariiqiisa ku toosnaato ayadaa ku imaanaysa sharaftiina ilaashada waxbarashadiina hore ugu sii socda tusaale waxaa idinkugu filan hadda ka hor nin 5 shahaado haysta oo wadamadan hindiga jaamacado uga soo qalin jabshay Soomaaliya hadda ku nool yahay hadda goboladan ku soo arkay oo doctor ah oo dhakhtar kaamil ah waliba qaybta caafimaadka baa wuxuu yimid waddanka Sweden buu yimid xaafadaan deganay waliba ku soo degay markaas waa yimid way sanaqaan markaas uu yiri waxaan rabaa in aan dhakhtarnimadayda hore u sii wato oo wax la yiraahdo dhamaystir aan sameeyo completeering bay dhahaan in aan aqoontayda dhamaystir ku sameeyo oo dhakhtar noqdaan rabaa wuxuu tagay qaybtii waxbarashada waxaa la yiri horta inta iska dhigtay shahaadooyinkan ala gambik xagga dhig baa la yiri wax la aqoonsan yahay waxaan weynba ma ahane waxaad iska xaadirdaa qaybta waxbarashada iskuulaadka qaxootiga tag baa la yiri waa meel ay ugu talagaleen dadka qaxootiga wax lagu baro
oo la fiirinayo haddaadan weliga waxba soo dhigan waxaa lagaga bilaabayaa a iyo b iyo c d ama alifbeetya lagaga bilaabaya dad wax taqaana wax yaroo lagaa hormarinaya wixiiba u arkay waa nin hadda kaba mustawa sarreeya moogti shahaadooyinkiisa dhan baa qiimo loo yeeli maayo wuxuu yidhi shaqo haddaan u baahdo maxaa la samaynayaa shaqaba hadda lagu sii maya baa la yidhi hadaad u baahato waxaa laga yaabaa markii iskuulkan aad dhamaydo oo haddana waxyaabo aad gasho yacni xiisooyin kale aad qaadato qaybaha guryo xaaqidda iyo xaafiisyada iyo shaqooyinkaas inaad heshaaba laga yaabaa sahal ku heli maysid hadda wax yaroo noloshaada iyo gurigaad jiifaladna waa lagu siinaa ardadaana kusoo biir shaqadana waxaa ka sokaysaba intaasoo aa ka sokaysa baa la yidhi ninkaas waa nin maanta soomaaliya kula jooga shahaadooyinkiisiibuu diyaarsaday boorso ku ritay baasaboorkii yarka ahaa oo weli aanba bilaj yar oo markii lasoo siiyo hadda la aqoonsaday ba uu kusoo tikid goostay waa soo baxay wuuna tuuray hadda isagoo meel u furataan kusoo maray magaalooyinka gobolada maalin mara arkay waa la soo kulmay waa nimaan isnaqaano waxa weeyaan wuxuu yidhi ilmahaagii weli meeshii miyay jiraan buu hal su-aal buu weydiiyey waas inta ila hadlay mase waa ka soo guurtay su-aal kale ku weydiin maaye sheekh bal hadda waa kasoo wadaa eri igu soo ducay doctor hadda bal meelahay joogaan baa iri hadda waa idinla joogaan xafladda insha allah qaarkiin culamada waa baran doonaan insha allah maanta sheekha inay soo bartaan bay soo aadeen marka qof walba oo tegay dhib uu kala soo kulmay diin la-aan nolol xumo qofkii shaqada uu raadinaya hadday tahay taxi hadday tahay bas shanta waqti waxaan xisaabiyey qof shanta waqti si toosa horta jamaaca xagga iska dhig jamaacadii nabigu ammaaray oo lagu tukanayo masaajidda taa maba helaysid calayhi salaatu wasalaam laakiin inaad shantaada waqti si khushuuc leh qad aflaxa almu'minuuna aladiina fii salaatihim khaashicuun ku dukato taas waa habeenka xaloo tegey qaarkood waxay gaareen inay naftooda ka dhaadhiciyeen maalinka fasaxa aan nahay baan salaada kulminaynaa dad baa aniga hadda iigu sheekeeyey ragay isla shaqeeyaan baan jarmalka ku arkay waxay dhaheen 7 beri maalinka axaddaa baan ka dukadaa kuwa yiri baa la ii sheegay oo inta kale maxaa dhacay sheekh taymba uma haya buu yiri waan shaqeeyaa taymba uma hayaba waa caqligiisa iyo diin la-aantiisa qof diin la hadda waxaas ma samaynayo wax maanta time looga sheekeeya male salaadii duhur baan joognaa kaliya waxaan rabaa dhallinyarada maanta ka qalin jabisay fursad dahabiya baad haysateen muasasada hore usii wata yaan niyadda laydinka jabin yaan qurbo beena wax laydinkaga sheegin yaan laydin dhihin lacag baa meel iska dhoobanee soo xaaqda ama soo gurubsada waxbarashadiinna muasasaadkiina mucallimnimadiina dadaalkiina juhdigiina sii wada subxi iigu horeyday oon bilaabo meelsha markaan tegay iskuulka la dhigto la geeyey naag baa dhigaysa marka waxay rabtaa qof walba markay la hadlayno soo fiirsho funaanad yaroo dhexdo halkaa ugu joogtay bay wadataa maxaan fiirshaa saasan maanta oo dhan ah marka inta u tagtay qof dadkii mas-uulka kore ahaa iyo guryaha iyo dadka dejinayay bay tiri ninkaanu nin wax baranaya ma aha maxaa dhacay baa la yidhi hal mar ima soo fiirinaya bay tiri kor ma soo fiirin maayo maalinkii bishii ku xigtay qof kormeeraa yimid oo waxbarashada dadka iskoolaadka kuwa soo baaro ardada soo salaama si wax u baranayaan dumaraa ku jira gacantii soo taagatay salaantii isbarashadii gacantan ka laabtay gooni baa inta meel la ila galay xaafiisahoo khaasa inta la waday baa la yidhi adigu horta nin wax og mahayda waa lagu sheekaynaa baa la yidhi waddankan dhaqankiisu waa noocaas haye qofka isbarashada markay jirto dumarka waa la salaamaa waa gartay maxaa haddaan maxaa u salaami weysaa la yidhi waa sheegay cilladan u salaami waayey hal jawaabaan aad uga jeedahaan aan laygu yidhi waxaa la yidhi inta aad ku nooshahay waddankan dufoor inta yoob harisfaria didliif baa la yidhi aldrik wax shaqaa waddankan ka heli maysid inta adduunyada aad ku nooshahay meeshaan baa la yidhi haddana shaqo waa shaqeeya ogaaw shaqalaan maahi marka waxaa yidhi maxaa sababa markaad meelaha shaqooyinka tagto waxa ugu horeeya oo lagaa rabo dumara u badan inta badan xaafisa ay fariisiyaan inaad qofkan salaantaaba lagaa rabaa la yidhi hadaad gacanta laabato weligaa shaqo lagu siin maayo waxyaabaha ka taagan waxaa ka mid a qof walba oo raba inuu shaqo helo way isdulleeyaa waa inuu horta ilaahay ka go-o marka ma inaan isdulleynaa u soconayna qurbaa u aadaynaa horta maya isdulleyn mayno inaan naa gaalaa salaano iyo
inaan qamro meel ka shaqeyno iyo inaan waayeelo xafaayad ka bedelno iyo doofaar inaan qaybino iyo khamro inaan ka xamaalno ama hilib doofaar aad kaasada marido iyo meesha la yiraahdo supermarketka diyaar ma u tihiin qurbaha dulligaas yaala waxaa laga yaabaa midka baska wada baska saacad buu leeyahay meel la taajiye buu leeyahay muxaadooyin ama la istaago haddii salaada la gaaro waa tukana waa istaaga laga yeeli maayo ma taajin karo waxaa laga yaabaa asagoo isla meeshii shaqada loogu talagalay gay baska in salaadii ku dhaafto haddii kala shaqada ku weynaya midka taksiga wada waxaa soo raacaya islaan ama eeyada wadata meesha kilaabka qamrada lagu cabo baylaada igey maya hadduu yiraahdo shaqada ku weynaya bal u fiirso dulligaas waxaad maqlaysiin oo lagu leeyahay qodkan lacag soo dhiibaan taxi bay ka shaqeeyaan bas baan ka shaqeeyaa dukaan baan ka shaqeeyaa xagga wax dulli aan ahayn inta badan kama jiraan meesha hadda koor Allahu naxariistay culimada waan u sheegay shu Ismaaciil digan ta uga sheekay sanad aan isku 2015 waxaan rabaa 6 mar aan waliba muddo gaaban aan maqnaa hal sano la eg baa sheekha uga sheekay Allahu naxariistay markaas uu madaxa gacmaha saartaba wuxuu yiri subhanallah ma waxay ku noolaadaan bay waayeen dhulkaan ilaa wuxuu yiri xamar ilaa ceel dheer inta u dhaxayda inta iska yimaadeen beera ma ka fashaan buu sheekhu yiri ilaa hadda ma halmaamo hadday nolol raadinayaan nolol dalkeena waa taal buu yiri waa hadday qofku irsaaqad rabo oo xamaalanayo oo calooshiisa wuxuu ku shuba oo raadinayo waa taas haddii uu diin rabana diin wayba taalba qofka marka hadduu diin rabo diin halkan bay taal aniga maanta waxaan taaganahay awlaadayna waa ka soo watay anuguna kutubaha iga jirana ka soo qaataan taagana culimadana waxaan ilaahay faatixada igu mara masjidkii iyo dugsigii aan darsiga ku akhri lahaa ilaahay inuu sahlo qurba wax laga soo saarayo malahan ma isku raacsanna diintiina Allah idin fuudeeyo waxa aad barateen Allah idin barakeeyo ayada hore uga socda